haddii aad soo fiirsatay labadii qaybood ee hore wax uun fahan ah waad ka haystaa waxa ay tahay Bitcoin. haddii aadan soo fiirsan muuqaalkan qaybtiisa hoose ka fiiri linkigooda. qaybta saddexaad waxaan uga hadlaynaa waa maxay altcoins. si fudud haddii aan uga jawaabno, cryptocurrency kasta oo aan ahayn Bitcoin ayaa ah altcoin. laakiin arrin yar oo faham u baahan ayaa jirta. altcoinska oo dhan ma ahan cryptocurrencies. sanadka dhamaanaya ee 2022 in ka badan 10,000 oo cryptocurrencies ah iyo in ka badan 17,000 oo altcoins ah ayaa lagu listigareeyay suuqyada cryptada. laakiin iyadoo ay jiraan xaddigaas aadka u faraha badan ee cryptocurrencies-ka ah, haddana marka la eego market cap-ka suuqa cryptocurrency-ga boqolkiiba 40 oo kaliya ayay ka yihiin qiimaha guud ee suuqa. altcoins-ka waxaa loo qaybiyaa cryptocurrencies loo yaqaano stablecoins sida USDT iyo kuwa la midka ah, iyo tokens u dhexeeya stablecoin iyo cryptocurrency. XRP-da shirkadda Ripple tusaale ahaan waa token u dhexeeya cryptocurrency iyo stablecoin. cryptocurrencies-ku waxa ay ku tiirsan yihiin blockchains isticmaala habka loo yaqaano proof of work mechanism, taas oo minerska ka dhigaysa tiir muhiim u ah shabakada guud ahaan. haddaba dhammaan cryptocurrencies-ka marka laga reebo Bitcoin oo ay ku jiraan labadeeda farac, Bitcoin Cash iyo Bitcoin Satoshi Vision, waxaa loo aqoonsan yahay altcoins. cryptocurrencies-ka qiimayaashooda aad ayay isu bedbedelaa, waxaana si aan la qiyaasi karin u saameeya wararka iyo dhacdooyinka kala duwan ee caalamka marka la barbar dhigo agabyada kale ee maaliyadda ama financial assets. stablecoins-ka sidoo kale ayagana waxa ay ku jaango'an yihiin ama sal u ah waxyaabo ay ka mid yihiin dahabka, qalinka, dheemanka, dollarka iyo xataa hantida kale sida shirkadaha. hantidaas kala duwan ayaana mas'uul ka ah stablecoins-ka suuqa ku jira. mar walba oo coin-ku uu damaanadaas ku xiran yahayna, blockchain-ka stablecoins-ku waxa uu noqonayaa nidaamka proof of stake. tokens-ku waxay noqon karaan nooc kasta oo blockchain ah, maadaama tokens-ka loo isticmaali karo kaliya blockchain-ka dhexdiisa ama ecosystem si loogu muujiyo qiimaha lacageed ee ciwaan gaar ah laga soo wareejiyay mid kalena loo wareejiyay. altcoins-ka dadka day traderska ah aad u yaqaanaan, waxayna aad u sii caan baxeen xilliyadii Bitcoin ay sameysay korokacyadii ugu dambeeyay. xilliyadaas digital currency kaliya looma aqoonsan ee sidoo kale waxaa loo aqoonsaday financial asset ama mid ka mid ah agabyada la maalgashan karo ee wanaagsan. mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee altcoins-ka ka hortaagan inay horumar baaxad la sameeyaan sida Bitcoin waa faa'iidada dheeriga ah ay ku qabaan dadkii sameeyay ama aasaasay. sidoo kale soo shacbixidii xargaha goosatay ee cryptocurrencies-ka oo la gaarsiiyay in ka badan 20,000 ayaa iyadana caqabad ku ah.